daraasaadka cilmi baarista Soomaalida waxaa la isku hayaa yaa u aabba ah, yaa ah founder, yaa ah father, yaa u aabba ah. qolooyinka cadaanku iyo ajnabiga daraasada Soomaaliya waxay isku raacsan yihiin inuu aabbo u yahay iyo furaba Professor Am Lewis. inaad maqasheen aan rajeynaya buugtiisana inaan inta yaalaan la soo dhigo waa wanaagsan tahay. wuxuu ahaa anthropologist British ah, ninkii u horeeyay academic si cilmi ah intuu yimaado wadanka u daraaseeyo Soomaali dhulka waqooyiga qaasatan Somaliland 1955 ayuu yimid ilaa 1957 ayuu joogay 3 sano. doorku deganaa anthropologistaasha sida wax u darsaan waa inay bulshada dhex galaan, dhex degaan, cilmi baaris ka soo qoraan. social anthropologist marka anthropology wuxuu kala baxaa laba qaybood: social anthropology and cultural anthropology. cultural ka dambeeya asaana laakiin macaan. social anthropology wuxuu qiimeeyaa qaabka bulshada u dhisan tahay, structure-keeda, say u nidaamsan tahay, caadadeeda, dhaqankeeda, diinteeda, waxaas oo dhan uu qiimeeyaa. laakiin culture-ku wuxuu sameeyay transformation, wuxuu qiimeynayaa Daala Airlines oo saaran tahay cunada laga cunayo, si dadku u wada dhaqmayaan, wuu balaariyay. anthropology wuxuu ka qaaday hal meel kaliya, wuxuu ka dhigay wax barood ah oo dhinac walba darsay, meel walba lagu darsay. dadku u fiican hadda darsaya oo ku jira daraasaadka Afrika anthropology waxaa kamid ah gabar yar oo dhalinyaro ah, Koongay ku maqan tahay, waxay soo diristaa heesaha Kinshasa ka socda. heesa badan ay dheelaan Kongoleeska hadda aragtaan YouTube laamiyaday ku ciyaaraan. marka waxaan maxay yihiin, seen u macnaynaynaa waxaan ay darsaysaa. marka ninkan wuxuu ahaa nin yimid ka helay grant colonial office wadanku gumaysigu weli ku jiray, waxay siiyeen deeq lacageed inuu u darso qabaa'ilkan daraasad cusub inuu ugu sameeyo qabaa'ilka ku noolaa dhulka Somaliland. doodooda marka waxay tahay asaaf furo u ah wax fiican oo qoray oo classic noqday. buugaagta la yiraahdo waa classic, waxaa lala jeedaa waa shardi in jaamacadda lagu aqriyo classic work sida Maxamuud Mamdani buugtiisa oo kale. book classic man Somali studies waa buugaas oo qoray Am Lewis, Pastoral Democracy oo PhD-diisa ka soo baxday. dimuqraadiyadda reer guuraaga qof Soomaali oo nin weyn ama wax aqriyo garanayn ma leh. hadaad akhrisid buugga hadda Cabdullaahi Yuusuf xataa waa xiganayay, wuxuu lahaa Am Lewis ku tilmaamay Soomaali inay tahay Pastoral Democracy, dimuqraadiyadda reer guuraaga oo looga jeedo geed hoostiisa la fadhiyaa nin walba dariiqa marayay ayaa soo leexanaya wax ku darsanaya dimuqraadiyadaas. waa tii Greek camal, egalitarian systemka Greek oo wax kala sareen ma jiro, geed hoostiisa la fadhiyaa. wayna dhacdaa oo hadda markaan odayaasha la sheekaysanay waa iga sheekayaan. waxay ka dhacdayba oo nin ii sheegay Cadaado Suldaan Axmed Nuur Cali Guuleed ayadoo la shirayo oo qabiil shirayo, nin odaya ii sheegay ayaa nin waalan soo galay shirki oo leh Suldaan isii hadalka aan hadlo. suldaankina uu ka bootinayo oo leeyahay hebel hadal adiga, bal hebel adiga hadal. ninkan waa waalan is leeyahay waxba hasin. marka dambe uu asaga siiyo yiri bal aan kugu soo afjaray hadal, kiya garta soo afjaray. magaaladana waa taqaan inuu nin waalan yahay. marka waxay muujinaysaa egalitarian system saan u nahay ummad wada siman. marka waxay leeyihiin Lewis oo ah aniga waa diiday, waxaan iri waxa u ah Sheekh Aways Maxamed Albaraawi, sheekhi Qaadiriyada. asaga wuxuu ahaa ninka u horeeyo Soomaali ah oo daraasad cilmi sameeyo, af Carabi ku sameeyo. uu u sameeyay si academic ah oo waafaqsan reer galbeedka, laakiin si cilmi u sameeyay. ma aha taas macnaheedu inaan ama suufinahay ama diidanahay culimada salafiyada ma ah, laakiin waxa cilmi aan ka eegayna yaa waxaan u hormaray hadii uu jiro cid kale ka hormartay oo la timaada cadeynteedii oo waxay cidaas qorto keento. for example Axmed Gurey wuxuu qoro kala qof soo helo waqtigu dagaalamayay dhulkan uu ku jira Harar iyo Baali iyo Baabili, qofka keenoo yiraahdo daraasadan Axmed Gurey ayaa ku seexan waatan ayadoo fragmenteeda wax ka jeexan yihiin. asaga ka dhiganaynaa founder, laakiin ilaa hadda intaan hayno Sheekh Aways Maxamed Muxudiin Albaraawi oo 10 sano Baghdad ku maqnaa, 10 sano 1875 ilaa 1885 yimi wadanka soo galay Baraawe ayuu base ka dhigtay. martaasuu ka daraaseeyay waxbuu qorqoray qasiidooyin. aniga hadda masterkeedii labaad qasiidooyinkiisa isticmaalay oo gaalada kula dagaalamay. qaasatan mar Etoobiyaanka intay soo fogaadeen 1908 ay balcad yimaadeen sida looga saaray asaa sheegay wax qoran oo Soomaali waagaas qoran oo nin balcad joogo oo qoran ii reebay ma jiro. marka qasiidadiisa ii sheegay ii shaacirkiisa sida loo eriyay ayuu ka sheekeynaa in habeen madow lagu daaray holac iyo dab oo ay carreen ama caaradii say u carreen iyo dhulkay soo mareen, qabaa'ilkay laayeen iyo dadkay dileen. intay dileen qasiidaday ku jirtaa annagana jawaab ku doodaba. aniga hadda PhD-deeda waxa cusub aan uriyay kamid tahay niri Soomaali waxay ahayd oral society, wax ma qorayn wax ma dhigayn sida kaliya oo taariikhdeeda horaan uga daba tagi karno
waa inaan sugaanteeda dib u fiirino gaaladoo dhan waa iga qaateen taas inaan waxa ay tirin jirtay oo murti ah ama af carbeed ha ku tiriso ama af soomaali ha ku tiriso inaan qiimeeyo salaan carabi gabaygo tiri inaan fiiriyo ama wixii ka horreeyaba ama qamaan bulxandhe sii soco qarniga 17aad waxa la tiriyaa ii sheegayo taasaaba ii aba original data ilaan ma hayo qoraalka ayaga cadaanka academical waxay fiiriyaan waxa la qoray oo shay awees hadduu wax qorqoray ilmihiisa ka qoray si yihiin iyo waxaasay qiimaystaan tan u weynay qiimaha siyaan weeye marka sheekh aweesaan de helay markaan raadinayay masterkan ahayd dissertationkayga ayaan culamo badan wareysanayay waddanka ma imaan karina waxaan raadiyey wixii adiga Yurub iyo Mareykan jooga waa yeela oo Mombasa ka soo guuray dadkii reer Baraawe joogay de waxaanaba jira oo PhD uu qoray nin Mareykan ah oo dhalinyaro ah nin fiican ah Scott Rees wuxuu ka qoray Baraawe iyo culamadii deganeed ayuu PhD ka sameeyay I think inuu PhD soo baxday 1996 late 1990 iska dheh laakiin ayadoo buugaa la soo saaray 2008 PhD-diisii oo la qabeeyey la sii qurxiyey oo buugaa jiro oo yaallo anigana ii yaallo oo si fiicanna uu u qoray runtii asagoo weliba dee qofku wax waa qoraa laakiin qaabku u qoraayo dee inaad nuances ay tahay nin aad u fahmay Mombasa tagay waddanka ma soo geli karin marka dagaalada xun socdayna uu qoraayay 94 iyo meelaha soo bilaabay marka de 2008 markii Etoobiyaanka ku jireen oo uu sii habeenayay inuu qurxiyo doonayay ma imaan karin marka colaadda darteeda cadaanka uga baqayaan halkan inay soo galaan marka Mombasa iyo tagay iyo America wixii joogay Yurub taasoo warwareegay wixii dokumenti urursan karana waa aruuriyay af Carabigana waa yaqaanaa marna gabar Soomaaliyeed oo qabi jiray oo muslimay marka deewaana is aragnay Scott nin fiican haddana professor uu noqday full ah PhD marka islaamkaas uu darsay I think Sheikh Aweesna chapter oo ka qoraba maanta wax Sheikh Awees cilmi looga qoray oo si academic ah ninka kaliya ka qoray waa chapter uu leeyahay boog ku dhex jira chapterka boog dhan ma halaka sheekhi uu ka sheekaynaya wuxuu ahaa marka asaga ma doodin oo ma dheen founder oo ahaa laakiin waa ka doodi doonaa I think inuu ugu raaci doono laakiin founder uu yahay marka waa kala qaybinaynaa marka si ayagana aan u siino credit-kooda anagana aan u qaadan aniga marka waxaan Sheikh Awees u arkaa inuu yahay founder of Somali studies laakiin Somali speaking or Arabic speaking dadka ama af Soomaaliga ku hadlo ay wax darso ama af Arabiga ku hadlo Luusna uu yahay English speaking Soomaalidu waa teed gaal dir gartiis markaas inaan asagana ku xadgudbin nin weyn oo wanaagsan ayaan u aragnaa Luus dad nacab waa jiraan Somali studies dhexdeeda mutacalimiin waa weyn oo Soomaali ah oo Luus la dirsan oo nacab waa jiraan waxa kamid ah labada ilmo samatar Abdi iyo Axmed labada waa nacab yihiin de waxay isku haystaan de waxay noqon kartaa de ninkan wuxuu ahaa ninkii u horeeyo dariiq uu leeyahay jeexday because dariiq qaloo jiray ma jirinba dariiq Allah dariiq umaro dariiq ah wadada umaro marka wadadaas oo muddo dheer saarnaa oo doodiisana waa cusleed marka ayaguna waxay raadinayeen meel ay waxaan ka galaan dariiqyo cusub ay baadi goobayeen inay ninkan laakiin waxa aniga ila tahay in loo baahnaa ayagoon la diririn ayagoon culaadin ayagoon dhib badan ay iskala qabsan oo sharaf daro lagu kala tagin in dariiqaaga haysa adna kan inaad haysatid inay ku habooneed ani saasaan u arkaa ilaa haddana waxaan aaminsanahay waxa aan qorayo iyo waxaan daraasaynayo cid kastoo igala soo horjeed inaan isla fariisano si kastoo isku diidanna inaan isla fariisano sheekaysano doodno laakiin aanan isku culaadin isku dilin dee wixiina hadda saan aragno wadamada colaaduhu ka dhaceen oo dhan Soomaali kaliya ma markaad adduunyada kala soo diristaan ogaanaysaa markaan hadda 2 sano ka hor Rwanda fiiriyay oo darsayaan ogaaday wadan markuu colaad galo oo warlord la isku dilo khilaaf xoog la dhaco khilaafkaas ma saameynaayo kaliya wadankii madaxdiisa mutacallimkiisana waa saameynaya bulshadii oo dhan uu saameynaa qayb walba marka annagana Rwanda la midna waa la isku haystaa Rwanda maanta cilbaarista laga sameeyay Rwandese studies waa la kala qaybsan laba la kala yahay xagga la kala joogaa kuwa dawladda u heeliyo mutacallimiin ay kuwa ka soo horjeeda dawladda kuwa u heeliyana badan de waatay Faransiiska tacallinkiisa weynaa Michel Foucault uu yiri power and knowledge ma kala haraan boog dhan waa power and knowledge slash bis u dhaxaysi da Google ku fiiris power and knowledge elku ma kala haraan ninka power ka haysta cilmiga produce garay bas asaga authority-ga xukumo laakiin inta ma jiro dawladda wada xukumi karta taas ma leh Ethiopia waa jiraan marka waa la kala qaybsan yahay marka Louis ayay leeyihiin annagana de Sheikh Awees aan leenahay yaan marka siinayna aan isku haynaa Somali speaking yaa u aaba marka u noqonay yaa Soomaali ah oo qoray cilmi baarista u horeyso af Soomaali ah waxay ila tahay inaan siin karno oo tahay inaan siino ka bilowno hadda Muuse Xaaji Ismaaciil Galaal in ma hayno Muuse wax ka horeeyay
nin qoray xigmad soomaali buug ugu yeeray lixdankii ka hor xigmad soomaali buug dhan jiro waa danba la daabacay laakiin waayadaas uu qoray waayaal buug hadda jaamacadda London iyo waa ku arkaa inta ina keentaan waa fiican tahay idinkana muuse wuxuu ahaa nin asaga wax isbaray ogaada cilmigu ma aha inaad jaamacad kaliya tagto inaad galaas kaliya fariisto ma aha sida dad badan Soomaali qabaan oo shahaado qaadad cilmiga qofka asaga wax isbari karo ya asaga intuu qol isku xiray library-gan maalin walba imaado wax aqriyo 10 sano waxaan wada aqriyo ku dhex jiro si dhiba u aqriyo 10 sanadood asaga caalim noqonayo marka dambe booy qoray oo wax oranayo moogta soomba jaamacad weligii tagay ya beeskiisa qofka asaga dhisi karo marka Muuse wuxuu ahaa nin asaga isdhisay wax isbaray dadaalay cilmi uu isaga dhex jiro 24 saac iskoolad adoo noqoto waxa arka marka oo arkay ninkan inuu nin potential yahay professor Andrewski nin professor oo yuhuud ahaan jiray Polish ka yimi dagaalkii labaad dadka soo qaxay Ingiriiska galay kadib wax bartay professor noqday oo cilmiga linguistic luqadda Soomaaliga u xushay inuu ku takhasuso PhD ku qaato marka wuxuu yimi professor Andrewski oo xaaskiisa wato mar dhaweetay dhimatay xaaskiisii 94 oo dhintay wuxuu yimi waqooyi dhulkaas Hargeysa iyo yimi British Somaliland marka wuxuu daraasay luqadda Soomaalida waana barta afka si fiican u yaqaan af Soomaaliga nin Soomaali jeclaana waa aha qof kasta oo ku soo gaar marka aan wareystaan hadda iskuma soo gaarin odayaasha waaweyn cadaan cid ay noqoto waxay ugu sheegaan nin naxariis badan qalbi fiican Lewis wuxuu ahaa nin xogaa kulul unless oo fahantaan oo fikradiisa aad ku aqbashid mooyee dadka wuxuu ahaa xogaa aad adaga ahaa Lewis oo waxaan oran karaa Lewis wuu dhaqan Soomaaliyo baan ku doodaa cilbaaristeeda yani maskaxdiisa iyo dhaqankiisa caadadiisa iyo approachkiisa oo dhan soo jeedkiisa Soomaaliyo noqday iyo xataa qabiilka qaabka uga fikirayo muddo hadda ku dhex jirtay konton 55 ilaa 2005 wuxuu qoray marka muddada inta la eg fiir inta la eg Soomaaliya ku dhacday marka Andrewski waa qalbi fiicnaa waa naxariis badnaa dadka waa caawin jiray say ii sheegaan marka Andrewski wuu arkay Muuse Galaal markuu wadanka yimid ninkaan uu habeen wax iska qorqoranayo wax uu qoray asagana Muuse laftirkiisu wuxuu ku mashquulsan yahay af Soomaaliga meeshuu ka yimid iyo Soomaali asalkeeda meel ka timid wuu caawiyay marka gacanta ku qabsaday jaamacadda London oo kala hadlay oo dhigay Andrewski London Soomaali marka Andrewski uma taqaan waxay u yaqaanaan meesha tigtid odayaasha hore dadka yaqaan professor Gush ya BBC-da iyo aad u yaala codadkiisa ayuu af Soomaali ku wareysanay waa fiican leed codkaas oo duuban taad BBC-da la xiriirteen inta la dhigo la dhageysto Gush sidoo u macnaynaa Soomaali aad wuxuu u jeclaa inuu siyaasadda ka hadlin oo ka hadlo luqadda asirka Soomaalida suugaanteeda oo jeclaa gabayadeeda waliba marka uu turjumayo gabayada Soomaalida wax lamida professor Andrewski ma jiro qof Ingiriisi yaqaan haduu akhriyo gabayada uu turjumay gabayada Faarax Nuur oo kale uu turjumay buug waxa jira la dhaho Introduction to Somali Poetry asaga Lewis asla qoray suugaantii hore Soomaalida turjumeen ayaa ku turjuman Faarax Nuur waa ogtii wada ninkii macneeyo ahaa gumaysiga markuu wadanka soo galay ninkii sheegay yiri wadanka waa la kala gogoonaya annagina waxaan ka nahay spectators ya waa fiirsanayna waxba kama qaban karno nin loo baahan yahay mar walba gumaysiga darsaayna lagama tagi karo Faarax Nuur waa asaga macneeyay codeeyay dareenka ummadda Soomaaliyeed ee gumaysiga u arkaysa marka way turjumeen buugay ka soo saareen de anagana hadda markaan jaamacad dhigayo ama King's College London workshop aan qabanayo Soomaali ku saabsan poetry Soomaali suugaanta ay weydiiyaan buug u horeey u diray kaas way Introduction to Somali Poetry in aqriyaan ardayda wax badan ay ka fahmayaan marka Muuse saasoo ku galay School of Oriental and African Studies iskoolka weyn iskoolaadka weyn caalam kamida jaamacadda London hoos tago ee lagu diyaariyo dhaqamada ummadaha Afrika iyo Oriental ummadaha bariga Asia ayaa lagu diyaariyaa meesha uu galay 1950s horaanteedii marka 2 sano I think inuu diploma ka qaatay markuu soo noqday research assistant wuxuu noqday guush ka hoos shaqeeyay meeshaas oo ka soo baxay Muuse wax badan oo contribution waa geystay contributionkiisa maxaa kamid ah waxaa kamid ah markii la yiri hal la keeno far Soomaali far noocay qaadanay 64 wafdi UNESCO wadanka yimid xamar 64 halkan wafdi ka socday hay'adda UNESCO oo yiri af noocay la qaadanaa Soomaali afkee lagu qoraa scriptiga markii la yiri dadka geeyo ku jiray Muuse Galaal fartaan hadda oran nooc kala u geeyay laakiin si kala ah ayuu wata asaga Xuseen Gadare afoo asaga leeyahay watay Maxamed Sheekh Jaamac wuxuu watay af kale saas ninba waxba uu la yimid ilaa 8 in ahayna jeclaa reportkooda waa yaala waan soo dhigi doonaa hadaan laabto inaan copy waa la helaa ayadoo la copyay ma badna dadka si loo kala geeyay fact finding mission ay u koorgaleen marka contribution xoog leh runtii nin ka horeeyay hadda Soomaali hadaan raadino in la helo Sheekh Axmed Gebiyo waa macquul
wax uu qoray oo gabayo ah laakiin daraasad oo wax ku darsay I don't know ma umalaynaa inay jirto marka Somali speaking muusan ka qaadi lahayn Arabic speaking Somali studies na Shawes English speaking na Lewis okay Italian speaking ayaa iyagana jiro waxa uu ah oo ka horeeyna Lewis Jiruli Enrico Jiruli wuxuu ahaa nin Talyaani ah soo 19 jir degmada Balcad ka noqday DC district commissioner gumaysiga Talyaaniga qoraantii qarniga 20aad markuu dirirayo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan xillidaas ayuu Balcad ayuu haystay oo tuulo amal ah iska ceel iyo wax noocaas marka dadku u kala xukumaan marka 19 jir ku galay systemka administration colonial administration waa sii koray de 19 jir la korayo ahaa Soomaali waa weynaaday Soomaali iyo wuxuu sii daraaseeyay Soomaali oo dhan saas oo dhulkeedu dhaxmaray oo kaga shaqeeyay ilaa Oromo maanta dadka u horeeyo oo kamid yahay loo aqoonsan yahay Oromo studies ay sharfaan nin walba Oromo taariikhdeeda qoro ama wax ka sheego oo juuri kaashado annagana de wax badan oo contribution uu leeyahay cilmi baaris badan oo qoray wixii marka isku geeyo oo 3 buug oo soo saaray I think inay sponsortay dawladda Soomaalida dawladdii jirtay daaqiliga ahayd 50 ilaa 60 volume weyn intaan la eego soo baxay 57 labadii ku xigtana 59 waana yaalaan jaamacadda London volume 1 volume 2 volume 3 midba wax buu kaga hadlayaa suugaanta siyaasadda caadooyinka dhaqanada meeshaas aad ka ogaanaysaa suugaanta iyo siyaasadda waagaas jirtay inay tan maanta la mid ahayn oo transformation xoog loo dhacay marka asaga de nin ku qabsan kara ma jiro wuxuu ahaa asaga anthropologist ma ahayn historian ma ahayn wuxuu ahaa wax la yiraahdo ethnologist oo daraasayn jiray de qabaa'ilka iyo maxaan ahnaa ethnologist waxaan ku turjumi karnaa waa ayuu darsay adiga ethno waa wax qabiilo iyo tribe ka koreeyo umadnimo na ka sokeeyo qabiilna ka sokeeyo waa wax noocaas ah ayuu macallim ku noqday si fiican oo darsay qaasatan waxyaabaha sida fiican u sii darsanay waxa kamid ah islaamka Soomaalida qaabka Soomaali islaan u tahay inuu ka duwan tahay asaga de habar noqdo provocatively wuxuu alifay wuxuu leeyahay Soomaali islaamka Soomaalidu lahayd soo wuxuu ka muujinayaan ujeedadiisuna tahay de islaamka caadiga ah iyo jasiirada Carabiga lama socdaan islaam waafaqay caadadoodii ay samaystaan islaamka ogolaanayo anaga laftirkayga waa ku soo gaaray anoo yar 4 jir 5 jir baan ahaado guriga Soomaaliga hadda soo gasho banaanka la surayo dhalinyaro lagu soo shubay biyaha badda wala leeyahay isha cilni wax islaam shaqo kula ahayn waxyaabo badan oo saas oo badan oo aruuriyay oo tiro badan waxyaabaha inta lagu dhagsaday iyo waxyaabo badan fara badan oo ku tusooyo laakiin asaga saas uma doodeen laakiin wuxuu ku tusaysaa bari islaam caada ah inay wali nala socoto caada naga go'i weyse islaam ka horreys inay nala socdaan marka si qurux badan oo de marka adiga daristado buugtiis ku noqod wax badan kaaga soo baxayaan de adina qof Soomaaliya tahay cilmi baara ah oo umada ka yimid mugti wuxuusan asaga arkay inaa ku dartaa macquul ah laakiin annagana naga maqan oo aanan ogeyn oo waagaas jiray ayuu dirayaa waxyaabaha kale oo igu yaa badanna buugtiis waxaaba kamid ah inuu Laatiin ku qoray gabayada hadda dhulkan warshiq oo kale waxba marka qoray shiribka inuu isku dayay inuu Soomaali ku qoro Laatiin ku qoraya marka hadda waa wareersan yihiin laakiin hadda si fiirisa waa aqrin kartaa shiribada isku dayo ahaa mugti laftirkeeda in Laatiin lagu qoro Ingiriiska bilaabay qarniga 19 dhamaadkeedii Jarmalka xataa mid ka yimi Soomaali lagu qoro laakiin si u qorayeen Laatiinka ayaa qolooyinkan dambe si develop gareeyeen marka ragaasa u ah Somali studies 200 inta soo jiray ayaa u ah afarta hadaan tilmaamo de Faransiisku wax badan asaga nagama qorin daraasaadkooda de cilmi baaristooda waxay ku badan tahay Faransiisku dhulkay gumaysteen kuwan waxaan keenay carabna de wadamadan islaamnahay oo dhaqan iyo taariikh iyo diin wadaagno madaasneen muddo dheer ay ahaayeen ilaa mid guray caawinayay nala socdo mar walba sayidka u soo gurmanayay mar walba Soomaali ku dhex jiray isku lifaaqnayna ahaayeen waa isku qasbanahay Ingiriiskana diwaanna gumaystay Talyaaniguna waa gumaystay marka Soomaalina anaga Soomaali ah marka afartaas oo kala saari lahaa waa inaan overview ka bixiyay qaabka Somali studies u qaabaysan tahay qaabka dambe oo hadda socdo waqti ma hayno waa sheeko kale oo dheer waagan dambe marka I think inaan marka 15 minutes hadlay 20 minutes hadlay intaas aan koobo su'aalo in ka qaado marka ayaa igula qorxontaa overview ayaan bixiyay si deep iyo detail waxaan u gali lahayn de markay waxay yihiin chorus ama waqti intaan ka badan aan soo helno oo maalin ama gelin dambe ama habeen
saacado badan marka inta kale su'aalahan qaadan doona waqtiina waa haysanaa su'aal ku qaadan okay waa maasantaa waa su'aal muhiim ah Soomaalidu ma la hayo mana la sheegi karo mana la kala cadeyn karo oo si dhab ah oo yaani definitive ah looma sheegi karo asalkeeda meesha ka timid waana hadda su'aal aniga marka la yiraahdo waa anthropologist and historian London meeshaan tagaba Soomaali su'aasha u horeeyay weydiiyaan waxay tahay isirkoodii meesha ka yimaadeen laakiin anaga waxaan darsoynaa 200 sano dambe ayaa aniga researchkay ku saabsan yahay isirka waa iska fiican tahay inaan ka daba tago waana ka daba tagay waa waxba fiirfiiri laakiin ma aha mainly marka waa u baahneen qof aad u darso inta taga because waa su'aal Soomaalidu aad u danaynayso inay isirkeeda fahanto inay fahmi laadahana waxa keenaya hadda Ethiopia laguma wareysanaan isirkeeda ama ayadu ha u macnaysato saas ha u samaysato laakiin isirka Ethiopia dibka muran kama taagno Soomaaliga dib kama taagno South Africa Bantuugaas jooga dib kama taagno anaga waxa keenaya dad reer guuraa inaan ahay nolosheen oo soconay wax noo qoran aysan jirin oo maanta laga daba tagi karo wax oolna laga qoro mooyee wax anaga aan qornay oo Soomaali qortay xilligii Axmed Gurey ama ka hor oo meel yaala ma leh wax u weyn oo laga daba tagayo waa wixii Ibn Battuta qoray wixii Ibn Saciid qoray markay wadankan yimaadeen wixii uu naga qoray Nagosh gabayga uu ku sheegay Soomaalida meeshay waxa ay yihiin waxay naga qoreen gumaysigana waa jiraan runtiina waxaan u baahanahay Soomaali hadaan waana nood gareeyay oo noodan ku qoray meel ay u yaalaa waxaan isku day doonaa inaan ku daro bugaagtayda oo midkood waxaan u baahanahay hal qof ma dhigi karno ha noqdo laakiin dhowr qof oo isku tago qof yaqaan koow si fiican u yaqaan cilmi baaris fiican oo si academic loo tababaray oo af Carabi bas yaqaan si fiican u yaqaan af Carabi wax kalaba si fiican u aqoon Carabi yaqaano mid Ingiriis si fiican u yaqaano mid Faransiis si fiican u yaqaano mid Portugiis si fiican u yaqaano mid Persian Irankan si fiican u yaqaano Talyaani si fiican u yaqaano ilaa 7 luqadood 7 qof oo deeply academic u noqday in dawlad Soomaaliya ama qaran dambo dib loogu dhasho sponsoro oo meel isugu tagto oo ka daba tago isirka Soomaalida maxay u qabanayaa kan Portugiiska yaqaano wuxuu qarniga 15aad markay soo weerareen Baraawe Portugiiska ay burburiyeen Baraawe gubeen waana qorantaa aygaaba hayaba wuxuu yaalaa Portugal u yaalaa library-yadooda iyo archive-kooda kii watay kabtankii uu qoray noocay ahaayeen markay burburiyeen idaadka ay ka qaateen xamar iyo Baraawe iyo duqeeyeen iyo Seylac iyo Berbera ilaa ma jirin moogtahay magaalooyin ma jirin dadku dooro iska ahaayeen laakiin inta city states ay jira Muqdisho gooni isku xukumayso Baraawe isku xukumayso Seylac iyo Berbera waqooyigaas oo dhan Seylac iyo Berbera dhinacan Kismaayo ma jiraan Baraawe iyo Muqdisho jiro xoqora notes oo ka sheekeynay dadkan ilaayeen daabkoodina boobeen nooc uu yahay marka nooc uu yahay waxay u sheegaa meesha ka imaadeen hadaan darso waa ka dhex fahmaya nin Portugiis ku takhasus Soomaaliya loo baahan yahay ko Portugiiska marka taan kaga faa'iideysanayna waa taas qarniga 15aad duqeynta geysteen kan Faransiiska aadan ugu baahanahay in waxa jiro hal nin kaliya ilaa 3 nin Faransiis mid ah si weyn Gaulian Allah Gaulian wuxuu qoray uu yimi Muqdisho xogaa ku noolaa Axmar Weyne 1846 1843 ma 1844 waa buuga markuu daabacay iyo 3 volume oo daabacay 1844 mid oo daabacay 46 mid oo daabacay 48 mid oo daabacay marka ka hor uu yimid marka 1844 ka hor ya 1844 ka hor Axmar Weyne degay markuu degay Baraawo degay barigaas Baargal waa degay Bareeda iyo Bandar Jadiid meel on waa degay las qoray dhinacaas waa degay xeebaha de marsado yar yar ah wax laga dhoofiyay moogta laakiin Muqdisho waa rooneed magaalo fiican ay ahayd oo marka volume waa weyn oo qoray Axmar Weyne iyo sida loogu dukaday iyo xataa ku qoran waaga loo dukanayay gacantiisa laftirkeedu waxba ku qoray gacantiisa darawin ku sameeyay dadkii dukanayo dumarka xataa waa sawiray dumarkii oo galay wax tumanaya suuqa hadda meeshaas waxaan ka fahmay darawinkiisa meesha hadda Uraba ku yaala hadda fiiris iyo wasaaradda maaliyadda bangiga ganacsiga soonahaas wax yar hadda hore uga sakatid meel waxay ahayd waagaas 1844 ka hor markaas suuq xoolaha lagu kala gadanayo seelad dad timaha saas u soo sabaqsaday dhaqanka Soomaaliyeed lagu yaqaan ay taagayeen warmo wato oo geela ka keenay meelaha marka laftirkiisa nin darso aan laftirka inaan aqriyo aadan u darabaa mar hore aan aqriyay waa hore ya 5 sano ka hor meelaas inaan mar labaad ku laabto aad u macaana Gaulian
وشردي إن الأغرية قبرها هذا مرد وحكى قرقرتي ست دبا حتى أسجل لفتر كيس إلا ترجمه حتى وافعنا لهاد أما إنجليز لو ترجمه أما اللغات صومالي إلا وح أقرنا يملي هل قبرها هذا أنا أركبه وح أو قوليان وح كأغري يوض أغرين لك وحبيك أغرس هيتر ماري أكو هي الإرادة أكو حوي نك قبو من مدوى قبل لك عدان مريكا نوع PhD قرتي University of Indiana waxay ka qortay dumarka Soomaalida ee dharkooda dress the political dress in Somali society Allah waa review garay aniga review aan book ku sameeyay waana amaanay book aad u fiican waa PhD soo la soo koobay Indiana University daabacday mar dhow soo baxay 2013 meelaas book aad u fiican qurxoon simcaan u qortay Soomaalina de qof ku dhex jirtay waa ka xumaa doonin aroosayo nin Soomaali inuu ii guursadaan jeclaa marka nin kale oo ajnabi oo maaliya aan u maleynaa inuu ka yimi ninka qaba وانا مسلم هذا يوتيوب كان أركي بعيد الله ورسنا يا حبيبي دويت associate professor هذا تهاي مركب جولياني وحكي حاجتي جرولي إيو درسكي وحي صافي رنسي لا بريكولونيال إلا all the way down درسك هذا جلبابك وحس أي PhD قرح بدنا معن أي كقرتي مركب أنا جوليان وتاستا وبهنا فرانسيسك تاني محن وبهنا هاي إيو كودهم بجوميسي ونبا ما له أصل سعودي وحو هركس ودرا إكسبلوررز كو أسي درس عيدتك سيفيرنا يصدري oo ka soo hormaray ya Rebecca Brichetti nin Talyaani oo ka soo horeeyay oo wax qoray ma ogi Rebecca Brichetti 1899 oo daabacay laba boog leeyahay البنادر اساس ya البنادر mid ah ajiro horta oo banaadir uu ku saabsan yahay bas banaadirtii horadii waxa la oran jiray warshiq ilaa iyo baraabe banaadir ay mugti gobolkii banaadir ilaa mar dhow waa soo gaaray Maxamed Siyaad Daraabe dalay oo saddex gobol ka dhiga Shabeelle hoose banaadir intaas hal gobol isku ah marka buuga qoray Brichetti aad u fiican yahay runtii buuga dadkan marka explorerada ah ee soo hormaray ma aha academic inay yihiin haw malaynina dad wax yaqaan waa yihiin laakiin academic training oo toos jaamacad ma laha laakiin dad wax fahamsan oo lagu soo xushay de wax on diploma iyo inay ka haystaan ethnology-ga cilmigan ethnology anthropology mar dambe oo imaan doonaa cilmiga lagu darso umadaha ethnicity-ga isirada oran karnaa ethnology isiraday barbarteen marka waa yimi waa qoray si fiican uga qoray dhulkan waa ka qoray soo waliba wuxuu sameeyay Muqdisho ka baxay saasoo u baxay asaa buuga ku darow gareynayaba saasoo u socday xeebtaas oo maray ilaa hobyo bartagay saano u soo leexday baladweyne korkeedo maray mustaxil dhinacaas waa laabtay bari eyl ilaa iyo waqooyi socday laakiin daraasadiis xooggeed u badan tahay koonfurta iyo qabaa'ilka deganaa say ahaayeen oo la kulmaya jaarta oo qora xataa jufooyinka iyo jalbiyadooda waxa dhan ayuu ka sheekeynaa noloshooda dhaqan dhaqaalahooda si fiican u sameeyay marka asaga laftirkiisa de iyo booga kaliya noodadu ka tagaa jiro Brichetti notes loo oo daabicin oo meel yaalo oo qoray oo biyo habeen uu joogo wax uu qoray waxaas qof darsan u baahanay oo isirka Soomaali waa laga soo dhaxogaana kaas waa Talyaaniga iyo rag kale ka badan asaga ya Friendia kamid Friendia oo luuq xukumay colonial governor ahaa Talyaani ah ila luuq boog qoray waana ethnography aad u fiican runtii ethnographic work anthropology cilmiga ethnography oo isticmaala mugta umadeen caadada la dars kaasoo kale in waxaas oo dhan la eego waa badan yihiin wax hal iyo laba ama wixii gumaysiga qoray Ingiriis de waxaan u baahanahay waxaan ugu baahanahay waxay qorayeen dadka soo hormaray ayaguna ya kuwa ku soo hormaray Soomaali waxay ka qoreen sababtay u fiican tahay maxay tahay markay soo galeen dadkay wareysanayeen qabaa'ilkay u tagayeen waxay oranayeen Soomaaliya waay yaa Soomaali ah tuulo kale tagayaan meel tuulo ah ceel biyo laga cabay doorka hawdka qabiilkay shiranayaan maxaa tihiin xagee ka timaadeen asalkeen waa u sheegayaan marka waxa yaab la hadda marka aniga kuwaas qaarkood fiiriyo qabaa'il badan oo Soomaaliyeed waxay waagaas u sheegayeen asalkooda meeshu ka yimid ee wax maanta la sheegay waa kala labo taa la yaab kaaga soo dhaxbaysa ogaanaysa waxa kale yaab loo aniga la yaabay qabiil badan maanta jilifyada u qaybsan yihiin kuwa kala jiray oo ku dhex jiray ma liqeen ma gumaadeen oo ma baabi'iyeen ma fahanto macna ma jiro maanta charterkooda hadda eegtid waagaas jiray ama magacyo kale lahaaba ya adiga beesha aan ka dhasho markaan fiiriyay Brichetti waxa uu ka qoray magacyo aan jirina ka dhex jira maanta tirsigooda markay ii sheegaan waa yaab waa ina ogaataa waxaan maxay yihiin marka waxa la sameeyay markaan ku doodi kartida marka qabiilka waa markaas doodda ku caawinay doodda de wata la isku haysto Somali Studies Louis iyo la haysto Louis leeyahay Soomaaligu qabiil wuxuu u yahay diin qabiil kama bixi karo ku dooda moogta Louis Soomaaligu qabiil wuxuu u yahay waxay diin ah ku daga camal waa diinta qabiilka ugu horeeya ku dooda
Soomaali badan waa diidan yihiin kuwana waxay ku doodayaan waa constructed qabiilka waa la abuuray hadda wax la abuuray waa la sameeyey on the spot wax la sameeyey yani constructed ah reeraa isku yimid balcad ku shiray waxay dhaheen war aan qabiil iska abuurano waagaas hore kuwa ku doodayaan wax ma leh genealogy iyo ancestry isir uu ka daba tagayo waxaan la leeyahay Axmed Cali Xasan Faarax oo 40 ka soconay waa sheeka bareley waana u egtaaba laakiin labadaas doodood anaga tan ma qaadana waxaan isticmaalnaa wax la aniga isticmaalaa la dhaho contextualists oo ah on the spot xaaladda markaas lagu jiro leeko adiga meel ku geynayso markaas meesha aad taaganta ayaa ama qabiilka siyaasadeynaayo ama islaameynaayo ama wanaajinayo ama daacadeynayo ku doodnaa dood cusub marka taan ugu baahannahay marka in loo qiimeeyo taas waay marka weydiiyaan xagee ka imaadeen maxaa tihiin xataa waxay u sheegayeen caadooyinkooda iyo sharabyadooda iyo sugaantooda wax noocaas meelahaas de isirka waa ka dhex ogaanaynaa marka waa taan ku dheeraada waa su-aasha isirka marka ilaa hadda lama hayo ummadda noogu dhow marka yaa waay annaga Soomaali caada ahaan iyo dhinac walba ummadda noogu dhow maanta Soomaali yaa ku dhow la dhaho waa Oromo yaa ku sii xigo Danaaqil Anfarta yaa ku xigo Saaho intaas kaliya waa Horn of Africa intaas aslana saddexdaas ummadood Oromo Danaaqil iyo Saaho saaxadana dee waa hadda dabar jarmeen oo ummad badan ay xogaa ahayd waa dabar jarantay ama dhex colaado dhexdooda si brutal ay isku dileen dhinacaan Djibouti waxay kor markaa uga bax Djibouti ma degano Eritrea borderkaas Djibouti ila leedahay dhinaca badda ay degaan asalkooda dhahaya xataa Carabi ka imaadeen Yemeniyiin oo eegyihiin noocaas laakiin dee waa isku dhownahay Oromada dee waxaa ka mid ah luqadooda dee waa shaqalka dheer waa qaataa ay leeyihiin haddaa fiirisid annagana dee waa taas socoto luqadeenu shaqalka dheer yahay waxla badan oo iska leenahay jiro luqadaas aan ku kala duwannahay maahan hadda laftirkay aan Ethiopia markaan tagay waan soo daraaseeyay aad baan ula yaabay runtii dumarka waxa dhanba isku mid ah si kasto waxaan ka fuulay baabuur dir dhabe ana u socda Harar cilmibaarada tahay qaasatan anthropology iyo history iyo political science adaristay marka cilmibaari sameynaysa hadda ma suurtagelayso wadanka nabad waxun tahay BL-ka iyo al raaca cilmibaarada tahay ma halay waardiye iyo halay wadado ma ogaan kartid marka taxiga hadaad fuushid dadka meelaha ay fadhistaan maqaayada ugu tagtay markaas aad wax badan ogaanaysaa marka dirdha markaan ka soo fuulay waxa ila fadhiso halkaan iga fadhiso maamo Oromo oo dhalinyaro ah ilma dhashay ninkeeda nala soo hadlayo boqolkiiba boqol Soomaaliya u maleynay caadadeeda iyo say iyo ixtiraamayso isaan isku qabsanay isla markiiba dareenkayga iyo qalbigayga isla markiiba markaan sheekaysano wada hadalno buskudiyo iyo waxaan ka soo qaaday England aan wali saan soo naxariisanayno xataa ma aha kaliya inaan isku dhownahay israahaane qaloob ahaan xataa ummadaan isleenahay ayaga laftirkoodana waa ila murugoodeen marka jaamacadda Addis Ababa aan ka hadlay say wax ii weydiinayeen Oromado khaasatan kuwa muslimka ogaada si fiican aan isu leenahay marka wadankii baaba'ay dad ma leeyahay oo wax ma hareen dad mutacalimiin oo wadankiina u fakaraya ma jiraan annaga hadda halkan waxaan u aragnaa inaan saan dawlad ku nahay laakiin adduunyada marka banaanka uga baxay wadanka u liita adduunyada loo yaqaan caalamka World Bankiga adaa fiiris horumarka aadanaha Human Development Index kan u liita caalamka dhinaca horumar wax walba laakiin annaga sidaanaan hadda iskaga soconaa dib uma fakarayno si critical ma dhahayno waraan wadankeen meeshaan ka qaadno ayagu waxay leeyihiin ma laga yaabaa inay Soomaalida isku soo noqoto mid noqoto qaran noqoto adiga doorkee kugu aadan maxaa adiga Oxford joogtaa ku qorshe ah ma midaysay mutacallimka Soomaalida isu geys wax la midayn kara ma dadka waa kala go'an yahay aad u soo haystaa marka de meesha ka ogaanay not only isir kaliya qolob ahaan xataa ina ummad isku dhownahay marka ayaga noogu dhow ummadaas Ethiopia degan Soomaaliga isku ma dhowin ummad de waa jira wadankii dad Bantuuna la degan oo Soomaali waa iyaguna Soomaali marka yaa noqonaya la isku haystaa laftirkiisa aqriya the invention of Somali book fiican waay Professor Ali Jamaali uu edit gareeyay dib ayuu paradigm cusub u furay 1995 ayuu soo baxay marka the book wuxuu ka waramayaa in dib loo fiiriyo Soomaali maxay tahay homogeneous ama ummad wada mid ah maxay tahay marka yaa Soomaali noqonayo dad badan hadda markaan waraysto waxay leeyihiin Soomaali Israel lagu noqonaa Soomaali yani waxay taas oo ula jeedaan basically hadda fahamtid Catherine Bestman aan ku dooday anthropologist Bantu jareerka ay diristay PhD ku qaadatay maamo weyn oo fiican 87 wadanka deganeed hadana Mareykanka jaamacad ka dhigtaa dadka looga dambeeyana Somali Studies-ka leaderka oo ay ku jirtaa dumarka ayadaaba lambar 1 ah
waxay ku doodaysay kana qaata aniga iyada ka qaatay Catherine qof fiican weeye waxay ku doodeen Soomaali wuxuu Soomaali ku noqdaa inuu qabiil yahay horta marka hore inuu qabiil u dhasho hadaad reer hebel Soomaali ma batid ayada doodayso runtii hadaadan dhihin Soomaaliya ka tahay waxa ku xigaya taa ku xigo hadaadan marka dhin 4.5 kaas aad kala gelin Soomaalina waa laga saaray heshiis kuma jirti anaga marka waa inaan jid cusub u sameynaa waxaan marka macquul ma umad rabto inay ilbaxdo umad rabto adduunka inay la socoto 4.5 la inaa gashid ma soconayso aniga marka waxaan doodi doonaa oo doodayda noqon doontaa Soomaali wuxuu Soomaali ku noqonayaa dareenka consciousness dhimirku ku noqonaa Soomaali hadduu aniga Soomaalinimo igula fakarayo ilan hadda qurbaa laga soo wada noqon doonaa ama waa lagu noolaan doonaa oo dad badan aan soo noqonayn dadka badankiis ma soo noqon doonaan diasporada waa wax waa experience-ga laga helay Afghanistan Morocco umadii hore oo qaxay badankood Soomaalida baxday ma soo socdaan taa la socda ilmahay dhalaan kuway si dhalaan afafka Finland iyo ku hadli doonaan Soomaali waxana yaade laakiin dareenkiisa Soomaali u ku yahay ya asalkiisa waayaa horta kan waa isir laakiin dareenka Soomaali ku noqonaa afku ma noqonayo yaanan oran yaanan qabiil qoran aan dhahna dareenka hadduu kula murugoonayo oo kula dhibtoonayo oo Soomaali dareen Soomaali leeyahay Soomaali uu yahay maxaa kamid for example go'aankaas aan ku gaaray waxa ila soo xiriiray 3 bil markaan Oxford markaan bilaabay October 2014 adiga by January 2015 waxa ila soo xiriiray nin madow Mareykan ah waxa weeye cadaan iska dhal ah Obama amal hadaan iska dhal sawirkiisa uu isoo diro fiiriyo xataa wuxuu u yahay Obama uu yahay Washington uu degan yahay nin Soomaali darso ahaa oo laakiin ka tagay oo dawladda Mareykanka u shaqeeya soo ii sheegay waxna uu qori jiray wax fiican waa qoray sidii su'aagiisa hore iska wixiisa noqdaan journalistic academic maaha gabar Soomaali oo qabi jiray oo isbaran doona marka dambe marka waa ila soo xiriiray boogo qoray boogo aan fiiriyay boogo soo wada hadda boogiisan ka comment gareynay inaan wax ka toosiyo wuxuu igu yiri gabadhii waa kala tagnay 3 ciyaal ay dhashay ilmihi madow waa ilmihi Soomaaliya rabaan inay wax u taraan ilmihi waa Soomaaliyoobeen uu yiri dhacdadii heesii Soomaalida ku heesayeen maxaa saas ka dhigan eri wuxuu yiri abaryarahood kuway dhaleen ay la associate gareeyeen abtiyaashood kuway dhaleen ay la associate gareeyeen oo Soomaaliya ku dhex jiraan cunada Soomaalida rabaan waa Soomaaliyoobeen ilmaha sadda dhahna ka warama Soomaali ma noqonaysiin aas ka fogeen haddana waa doodaas waa socotaa citizenship ya hadduu la helayo qofku dee dareen Soomaali kula leeyahay ma ayna exclusion ka saartid state-ka aan noqonina waa inaan ka fikirnaa si cilmi ah ya transformation aan ugu socdo qofka hadda waana jiraanba waad ogtihiin hadda aniga waa barigeedana ku dhashay waa arki jirnay anagoo yar dad la leeyahay waa Oromo asalkooda waana joogaanba London ay nala degan yihiin oo hooyooyin Soomaali dhaleen oo hadda Soomaali caadi ah saasa ila fadhiisin amal af Soomaali ku hadlooyaan ninkaas kale hadda waa anaaba arkaba hadda gabar London ka turjunto ma aha inay Oromo tahay waa Amharo waa ii sheegtaaba asalkeeda ya hooyadeed waa Soomaali aabaheed Soomaaliya dhalay kaanba Amharadaas ay ku dhalatay Soomaali ayuu turjumaysa anaa maxkamadaha Ingiriiska isku soo galnaa haddaad aragto Soomaali ninka qabo waa Soomaali ilmaheedu waa Soomaali dadkaas kale haddaan dhahna ka war Soomaali ma tihiin oo dareenka kula wadaago wax walba waa inaan ka fikirno taasna marka su'aashaas saasaan uga bixi doonaa هذا ما تصلت هاي رسالة وكلام هذا علمنا كنت تانك أنا بدأ أحتاج أنت أحتاجين على ظروف المالي كان كتب أنت أشي ده حوالي ضد أنا واحد كنت وضع أنا Soomaaliya manhaj shiri jiray ee waxbarasho hadda lagu soo jeeday hadii marka anagoo ka faa'iideysan aqoontaada manhajkaas wuxuu ahaa sheegaysa jiray oo wax lagu baran jiray ma waxa soo gaarnay iyadoo wadanka dhanba ku jiro kadibna waxbarashadeena waxay iska noqotay inaa sidaan hadda lagu jiro ku qaadano laakiin dada waxay hadda ku doodaan inay manhaj wax lagu barto lagu soo jeeday marka manhajkaas buu faahfaahin waa mahadsan tahay manhajka wadanka wuxuu la burburay qarankii ayuu la burburay 90kii waxa uu u sii socon waayay oo manhajkaas maanta u shaqeyn la'aana waxa kamid ah ugu weyn ina ogaataan ay tahay manhajkaas waxbarasho waxa qaabeeyay oo habeystay xukunkii Maxamed Siyaad Barre mar hadduu xukunka Maxamed Siyaad Barre meesha ka baxo kacaan iyo wuxuu ku qornaa iyo wax loogu talagalay in dadka lagu hanuuniyay ahayd waa baxay manhajkaas marka wadankan wuxuu galay civil war mar hadduu wadanka civil war galo wuu ku qasban yahay inuu manhaj cusub helo oo dib looga fariisto manhajkiisii taasaana keentay laakiin hadduu Maxamed Siyaad Barre manhajka taaban lahayn oo sidii 60kii horta u noqonay kii ku socdo oo ku wadi lahaa maanta kaas leen ku socon lahayn aan ku wadi lahayn marka kii laftirkiisa 60 ilaa 69 waxa loo baahan yahay dib loo qaabeeyo
wuxuu xoogiisa u badnaa asna talyaani iyo ingiriis waxay ka dambeeyday waa af Soomaaliga 72 standard laga dhigay 74 kana ardayda la diray hay iskuuladoo dhan ay doorka galeen oo ay ololihii waxbarashada reer miyiga la bilaabay marka wax waajib ana waayo lagu qasban yahay wadan hadduu civil war ka dhaco manhajkiisa hore si kasta u fiicnaa kuma socon karo waa in marxaladda uu galay contextiga la waafajiyo ana hadda su-aasha ugu dhibka badan oo hadda isweydiiyo wixii kale waaba laga heshiin karaaye tan iigu daran oo hadda aan noodka ka qorto markaan wax aqrinaya xagga waxay tahay see taariikhda waddankan loo qori doonaa Somali history see iskoolka loogu dhigi doonaa high school intermediate primary jaamacadda hadday timaado yes waaba waxaad doontaaba ku dhigi kartaayo dooda waa badanaysaayo jaamacadaha de waa critical ayaa wax loo fiiriyaa mugta laakiin halkan waa de cabqarinti ya cunug dhashay oo la siinayo bahasha caanaha laga cab oo kala waay primary soo maray maxaa loo soo dhigi doonaa primaryga ya intermediate secondary taariikhda la dhigaa noocee waay ya Somaliland SNM saa loo dhigayaa SNM halgankeedii xaguu ka galaa taariikhdan USC intee ka galay Maxamed Siyaad Barre xaguu ka galaa waa la isku wada haystaa de ya xagee ka galayaa ma laga wada tagay had Somaliland aan soo maray waxaa irahay maxaa ka yeelaysiin taar ama laga sameeyay waa qori jireen awalka hore SNM hadda waxay ii sheegeen inay ka tageen waayo qabaa'ilka qaar ka mid ah Somaliland ku nool ayaan u arag inay SNM qayb ka ahaayeen waaba la dirirsanaayeenba qayb ka ahaayeenba ma qaar ka mid ah waa tuu ku hubiyay Maxamed Siyaad Barre oo yiri kuwaan cuna labada dhinac ka dhigo yiri ka dhigta sandwich ya hamburgerka dhaxdooda ay ku jiraane isku dhufsada waa tuu yiri waa tay la dagaalayeen oo ku hubiyay laguna xasuuqay ayaga ya qabiilka weyn meesha degan ugu weyn shanta qabiil oo degan marka ayagii marka waxay goosteen inay bal SNMT ka saaraan manhajkoodii oo kuwaan aysan u dareemin marginalized educational marginalized aqoon ahaan inay waxaan exclusion ka yihiin banaan ka taagan yihiin ay waa iska saareen waxayna ka tahay marxaladii heshiisiineed oo kuwaas ay ku soo dhaweynayaan ya in la isku soo dhawaado laakiin taariikh laga tagi kara ma ah waa taariikh ay tahay inay macneeyaan maxay ahayd SNM maxaa keenay civil war maxaan colaadda u galnay waxyaabaha ugu dhibka badanna waa hadda Soomaali ka taagan annaga hadda waxaan hadda isku dayid inaa macnaysid oo lagaaga dhigayo qabiil si loo macneeyo Soomaali see loo dirsaa mar wax walbaba haddii la qabiilayna xawaaladii waa la qabiilayna telecommunicationkii waa la qabiilayna mobile systemkii waa la qabiilayna oo hadda xawaalada qabiila lagugu soo raadinaa London haddii maanta lacag lagaaga soo diray xamar yaa reer hebel ah address waa wax walbo every aspect of Somali society qabiil uu noqday marka qabiilkii say u dirsay wixii marka xaqiiqdana waxay tahay haddana waa ka sheegay jaamacadda Somaliland markaan lecture ka jeediyay SNM tuma ahayn bilowgeeda hore qabiil ya qabiil Soomaaliyeed dhan ay u furnayd anigaana geli karin ninka rabo de ku-xigeenkeeda xataa habeenkii waa hilmaamina cusub ku-xigeenkeedii wuxuu u dhashay halkan Ali Maxamed Cusub la wardhigley silaayo markii dambe oo madaxa ah ninka ku-xiga halkan ah de markii dambe de qabiil walba wuxuu furtay jabhad mugta waa lagu kala tagay markii dambe yes laakiin see loo macneynaa waxaan waa dhib weyn oo la rabo in mutacallim ka fikiro de anigana markii aan daraasaynayo waxaan ku dhex jiraa noodkaas aan qoray dhib weyn oo ooli doono Soomaali iskuna dili doonto wadankana de heshiisiin rasmi wali ma dhicin oo dadka colaado isku wada qabaa ciil haddii waxaan furmaan Pandora's box oo noqonaa wax gaaladu dhahan oo aad dilaac ku dilaacay halkaa wax ka dilaacayo sii dilaacayo oo noqonaya say u xiree faashad waa inaa ku haysid faashad le hadda la saaray laakiin maro si uuna looga doodaa loo baahan loo macneeyo ardaydan loogu dhigo marka manhajka runtii waa dhibaatooyinka adagoo that's why manhajka carabta iyo manhajyo kale halkan u yaalaan say ila tahay de loo laayahay Maxamed Cabdulla Xasan sayidkiisa loo dhigaa laftirkiisa ya Maxamed Cabdulla Xasan sayid Maxamed Cabdulla Soomaali meel walba wax walba ku kala qaybsantay maanta hero ma jiro nin la dhigi karo this is our hero ma jiro nin herogiisi de waa la isku wada haystaa wax booqa taagan sayidku de ya waji fiican waa leeyahay waji xun waa leeyahay laba waji oo leeyahay baana dooday waa midigii bidix ka qaadanay marka waxa ku ron labadaba ina qaadid midigna ka soo qaado bidixna ka qaado dhaxda dhig sayid hadda waxaan waa ku fiicnaa waxaan waa ku xumaa sayid Maxamed Cabdulla ya yes waa ku fiicnaa inuu yahay nin u istaagay Soomaaliya oo reer miyo badow ah inuu yiraahdo British inuu challenge garay uu yiraahdo no waa ku xumaa inuu qabaa'il laayo oo dadka uu gabay intuu gabiyo oo reer ku caayo ayba ahayd laakiin waxa saameynaya ay laftiga oran kartaa xaaladda uu joogay masiibo dhex taagnaa iyo qabaa'il iyo balaayo laakiin de maadaama uu caalim ahaa islaam ah oo si fiican run ahaan wax u yaqaan
inuu gadaal uga istaagay ee qabiilkay waxaan isdilaya inuu arka asaga inuu ka sarreeyo inuu caalami hadda waxaan ku xaqiijiyay aniga noodkii uu qoray uu u soo qoray ingiriiska gumaysiga berbere uu diray governorka ingiriiska 9 page uu qoray markaan akhristay oo ingiriisku ay rabay eedo uu af ingiriis ku turjumo waa yaabo nin waaga nool oo Soomaali ah oo 5 buug xiganayo oo cilmi ah 5 buug xigta soo isu daafaco waa marka Sheekh Maxamed Saalax yiri iga bax dariiqadii oo aaminsanaa Saalaxiya ilama tiid qaa'ina tahay umada dhameeyay sheekhiisa dhahay sheekh ma ka jooga loogu tagay Sheekh Maxamed Saalax warqada uu soo qoray ka bax iga tag hay sheegan aniga soo isku daafaco inuu san qaa'in ahayn 9 page uu qoray sheekh ingiriiska soo marka berbere laga sii dhoofinayo sir loo wado dhab yiri sirtii uu qabtay hadday turjumeen oo library-ga colonialka dhigan oo fiiri waaba wajacaba aniga nin saas caalim saas oo inuu u ahaa maba ogeyn nin wax yaqaano ahaa marka dhinacaas wanaagsan waa inaan sheegnaa scholarshipkiisa dhinaciisa brutalka uu dilayo seedigiisa walaashii ninka qabay ya oo walaashii barayay leedahay walaal ha iga dilin inta kala dil erga u timid uu dilayo wax dhaqan Soomaali ku cusub ah erga ay u soo direen beesha Maxamed Zubeer ogaadeen waa soo ka dhashay intay la direen oo nin ka dili gaareen istagaaleen ayay erga ka daba direen 38 moogtahay intay meel isku shirqooleen sayidku xogaa wax yar oo wuxuu noqday dictator inuu wax joogo iyo wax la dhows sameeyay wax joogo liqam qof marka ogaadinka waxay dhaheen aan iska kicina ninkan haddana cusub yahay aan cunno dil marka waa loo sharay gurdumi la yiraahdaa sharqoolka gurdumi waa raadiyay hadda markaan taga dhulka inaan soo arko meesha dad odayaalahood loo soo tatabiyo awyaashu u tabiyeen waa kala shaqeys marka in hal mar 100 nin warma ku dhufato si aan loo oran jufeeba la disho la subax xasuub soo warmay lagu tuur rabo nin oo hoos uga sheegay baashi dilida kamid wiir sayidii ya meeshan lagu cun ee ka bood sayidkuna saa markuu faraskiisu fuulay lagu tuur warmay oo Abbas ma tigis lagu dilay oo jeclaa gabayowna ka tiriyay nimanka dilay inaan caafinayn u leeyahay gabaygiisa marka ergey ka daba direen 38 ah dhahan sayidii inaan ku qaboojinaan doonayna xal inaan ka bixinaan doonayna sayidkii de waa nin caalim oo muslim ah oo diin yaqaan inuu daaye hal dilo yiri jaabo ku jibsaday ilaayo waxa ku jira Xuseen Dheer oo beesha soo xushay Maxamed Zubeer ugu balaaran ogaadeen soo xushay tiri Xuseen ba haduu ku jiro qabay ya ina Cabdullah Xasan de waa afinaya oo la hadashay tiri iga dilin inta kala dil ninka uu iida Xuseen kama maarba waa jeclad Xuseen buraanburna waa ka tiris kow 38 melody waa brutality falxuma ya waa in la xusaa oo taariikhda loo daramo wax aad u xun wanaagiisa la sheegay kana la sheego saas nin walbo xumaan iyo wanaag ya ha noqdo Maxamed Siyaad Barre ha noqdo Maxamed Faarac Aydid say waxaan aan wada qori doonaa taariikhdooda dadkan oo nin walba oo ama u cariisan yahay ama jecel yahay ya waa dib weyn oo manahajta naga qabsan doona science wax kale waa ka heshin karnaa juqraafiga laftirkiisa isku qabsan doonaa ogaada Puntland isay u qorayna galmudug iyo waxaan South West Jubaland iyo laftirkiisa doodo badan noo imaan doona cilmiga karod waxaan ahayn waa isku dili doonaa ilaahi hana kala badbaadiyo ay سؤال ها اوكي اوكي هاي واي استاذ هذا وما ها انا قف كاستيلو لو سؤالون ما قبل لو سؤالون بحسين كو Soomaaliya toban kun oo qarni marka dib loo fiiriyo labadan boqol sano hadda la joogay aan gumaysi oo Soomaalidu ay taariikhdeeda 1400 markii laga soo tago magaca Soomaalida xitaa waxaan aaminsanahay inuu saddex boqol qarni laba boqol qarni wax ka badan oo jireen magacyo badan oo berberi iyo gunti magacyo badan oo Soomaalida magacyadeeda iyo waqtigeeda waxaan soo saaraa Soomaalidu inay dadka aadka loola xiriiriyay ayadii qoramada waxa kamid ah Masar oo kale ay xiriir aan la lahayn oo maantana raafeebkii faraaciinta laga helo gobolka Sanaag waa sax ay yaalaan oo lacagihii iyo nidaamkii boqortooyada u dhisan jirtay iyo waxyaalo badan oo tixraac oo muujinaya maanta laga helayo maanta Masar dhexdeeda hadda tagtay waxa jiro qabiil sida Soomaalida u eg oo dhulkan Mesopotamia loo yaqaan ardu Sham gebiga ku hay marka maanta dhulkaas degan oo Soomaalida asigaba lagu kala soo dhigay marka taas fiirisay taariikhdaas dheer marka dib u fiirisay oo laga soo tago taariikhdan Norway ama Singapore oo Najaashi kaliya Maalik bin Marwan taariikhahan Norway
qarni ka hor ma la dhihi karaa taariikhda Soomaalidu way ka Ethiopia markii la yiraahdo masaaridii dhulka hadda degan iyo dadka waliba hadda ku isirkeen aan sinaba soo kala deganeen oo kala duwanaan markaa fiirisay diintii iyo qaabka iyo Allah sida uu dhaqmayaa sida uu kala doonaya markaa fiirisay ma la dhihi karaa qabiilka xagga uu jira isirka Soomaalida xagga uu jira si kala haddana isirka Soomaalida markaa u sii jira tusaale dhulkan Soomaaliya maanta banaadir waxay halkan ka xigi jiray way ka mid tahay baay iyo boqol iyo jubooyinka iyo gado waxa deganaa Ethiopia waxa deganaa Oromo oo dhul Oromo ahaan jirtay raadadka Oromada maanta iyo qabiilada ka tirsan waxa kamid ah qabiilka wardeeda la yiraahdo maanta Ismaaciil marka waxa laga yaabaa in badan oo dhalinyarada ka muujinaysa laakiin qabiilkaas wardeeda waa meesha kaliya hadda maanta ay ku dambeeyaan Soomaaliya waa qabiil la ogyahay in Oromo yihiin Soomaaliya Oromada iyo markii la yiraahdo Soomaalida xiriirkooda ma ka dhawaan kara meeshaas tan qabiilka haddaan usoo laabtana ustaadii waaya wato tusaale daarood iyo haddii la yiraahdo maanta isaaq oo kale waxaan ogsoonahay isaaqna inuusan 500 sano ama 400 sano ka badan jirin daarood ay ku andacunaya inuu kasoo degay barina oo yeman ka yimina uusan 400 sano ka badan jirin dhulka marka maanta baaxadaas iyo dadka maanta baaxadaas oo dhulka Arabishanta Soomaaliya jigjiga ilaa iyo maxay gaarsi ku fidsan ma dhihi karnaa 400 sano dhulkan mantaqadan ku noolaay waay marka arrimahaas waay waay محمد أبو المرسيال الله سبحانه وتعالى كنت سعيد بسوسيال آمين سوكو على ما يسأل حق أي مستانسك وقت أفريقيا وفينا الصومالي في متعين صوصي نفسه هرجري بريك يوم عرس بطني بريكس كهاد يجيب جري على شيء صومالي لو كان شيء يسبرابي ولا سقطه انت بدل روح الدين وكتب نايم من صومالي كحس العين markii oriental ka soo gudbishay oo Asia foxy India ka soo laabteen ay focus ka saareen si ay fiilis waxaas loo guusaara marka dadkaas styles badan waxa jira East Africa waxa la aqoon Kenya ma ugu naan way styles ku soo xigta inagu styles keen maxaa luis oo labada commission ka dhigtay oo macna ay dadkaas ka tageen meel bulshada okay taas waa mid hal mid kala dhacsan قائد كونت لويس أنا قانين بريتشين وياي أنا سومالي قارب الإعلام سو أسبق تسمى سومالي لم يحيش اسمه دراسات كسمية سمي له الدنيا قائلة كمان واي بسم الله ها اوكي waa soo koobaya waa la adinahay gabdhihin yaa weydiinay gabdhaha meel walba tago waxay ma weydiiyaan Soomaalida dhulkeeda waa aamusan ya okay tan hore haddaan ku hormaroon iska soo koobno su'aash dheer oo barood ahayd oo waqti dheerna u baahan in laga jawaabo laakiin de on shab ayadan un ka raaci doonaa isirka Soomaalida meesha hore ka yimi waa sax anaga laftirkayga waxbaan ka taataabtay waa barbariga iyo waxaan iyo saan isu nahay iyo isirka Soomaalida de saan sheegana iyo faraacinadii dhulkaaba Masar waxa af Carabiyan ugu baahnaa ka mid ahayd nin fiiriyo toddobada qof oo sheegay okay waaya sorry okay waas ka bilaabnaa okay wax ma jiro ilaa iyo hadda wax daraasad ah
oo cilmi baaris cusub ah oo waayadan dambe dhacda lagu qiimeynayo specifically isirkan Soomaalida berberi dheh Oromo dheh Numbian dheh waxuun dheh oo lagu eegayo laakiin waxyaabo waxaa jira DNA hadda oo qolooyin cilmi baaris ay wadaan oo la leeyahay Soomaalida iyay xigtaa ma Caraba ma Caucasian ba ma Nubianismia masar dhinacaas oo waana soo baxeen ilaa labo iyo kuwa archaeologist yaala dhulkan marka iyo qoday waa hore 80s deetamayadii oo wixii waagaas ay qodeen hadda wax ka sameeyay waa jiraan laakiin wixii waa de wax tentative ah baarista markay cusubta oo kale preliminary wax bilow ah waxa loo baahan yahay wax gudaha u dhaxgalo waxaan raadinayno waa hadda aan lahaa daba qof oo de cilmigan oo Soomaali loo raadinayo de ajnabigu de madanaynayo waxa loo baahan yahay qaran fiican oo noo dhasho wixii sponsoro oo ku dhiiba maal oo si loo raadiyo dadka ka bacdi loo gaarsiyo iskooladii lagu dhiga laga daba tagaa loo baahan de su'aashaasayna la soo xiriiri doontaayo hadda Lewis Lefterkiis wuxuu ku faan baa u noqoto ku faana asagu laakiin waa wax run ah buugiisa da aqrisid waxaan tagu yiri markuu soo saaray Pastoral Democracy waxa ka dambeeyay buug kale asna pastoral kale ma aha laakiin fiican oo la yiraahdo the modern history of the Somali taariikhda ummadda Soomaaliyeed waa buugga koobaad oo laga eego taariikhda Soomaalida hadda revision ku sameeyay dhowr jeer oo wax ka bedbedelay markuu soo saaray 1965 wax yar kadib uu dhulkiisa dib u fiiriyay uu tagay meelo albaaris ka sameeyay wuxuu tagay iyadoo la turjumayo xamar halkan oo jaamacadii ummadda iyo la foolo midaan laga turjumayo uu yimi 1960 dhamaadkeedii kiisiya la turjumaya aawe doorkii scholarka Soomaaliyeed aawe mutacallimka Soomaaliyeed ahayd sida Lewis oo kale inuu wax qoro waagaas aawe laga qori la ya in aawe intee jireen kaalin laga banaaneed uu buuxiyay oo ay tahay in looga abaal maro ma aha in laga abaal dhaco la eedeeyo la caay ma qofku si wax u arki karaa aniga laftirkayga ismaba ogolinba aniga asoo dirir jirna bilowgii hore laakiin waxaan u ogolahay inuu dadaalay oo contribution sameeyay inuu wax qabtay waa mar waaba isdirnaba laakiin waa heshiinay ma aha inaan isku dilaynana fikradiisa ma ahayn maxaa ii eedaysaan isku haysanay oo ii dhaleecayna aniga kula hadlayo waa azuumi jiray marka dambe waa saaxiibnan oday oo waayeela anaga laftirkeena daan wax ka barano aniga de eedaas oo diidi jiray asaga ma jeclan in la eedayo dhibaatada kaliya qaba taas ana hadda duu qof eedayo wax iga qoro I don't mind eedna waa leeyahay wanaagna waa leeyahay kuwa i wanaajina waa arkaya kuwa eedayna waa arkaya ma inaan ku xisaabtamo kaliya in aniga la daba galo ma waa dictatorship that's why aan weeday Lewis inuu la mid yahay mararka qaar siyaad bar dictatornimada okay taas marka waa proud of no dirsan u baahanna cilmi ma aha master aan ku sameeyna ma PhD af Arabi si fiican u yaqaan masar hadda raga joogo kale noo fiiriya u baahanna shaqadaasna nooma qabanayaan ajnabiga annaga taa inaan qabsano waxa aynu kugu imid waa galab inaan taas idinku caqariyo taas si kooban taas aan uga boodi doonaa warday Oromo yes 2 sano ka hor ayaan ba arkayba gumaysiga Ingiriiska qarnigan dhamaada hadda la soo dhaaf bilowgiis 1903 or 1901 Ingiriisku ka soo diroyo report Serinley meeshii deganaan jiray had Serinley waa baabada lagu yiri ma jirto inaan soo arko jeclaan lah meel oo post ka dhigtay military post Ingiriiska Kismaayo uu ku xukumayay Serinley markuu fadhiyo soo qorayo note dheer soo qoray dhisigi meesha fadhiyo dhahayo Soomaalidu waxay xasuuqayaan oo ay laynayaan si ay dhulkooda uga ciirsadaan dumarkooda ay ka qabsanayaan warday ayagu marka waxay yihiin Oromana ma aha Soomaalina ma aha laakiin Oromay xigaan marka dadkii aadka looga barakiciyay dhulkaas kamid yihiin Ingiriiskana waa ku taala iyadoo xaqiiqo cad ayaa meesha colonialka aan ku arkay inaan sawir ka qaado waaba u malaynaaba bahashaas oo aan meel ku hayo ayagoo inta laga laayay runtina wax inkaaraadka Soomaalida ku dhacday kamid tahay markuu Ingiriis ka sheekayna hadda qaabka loo laayay in aad loo dhameeyay oo ay carreen oo qaxeen dur ku carreeyeen iyo xilli jiilaal ah xoolihii ay wateen ka sii dhamaadeen ayagoo Soomaalidan ka yaacay Soomaalidu weligeed brutal dhulka ku ahayd oo kheyraadka aad u raasta ayadana waa isxasuuqays waa taday waxay ku caddahay Abdullahi Sultan Timcad gabagiis ninaan duubabeedu naafan noqon deelka laga waayay ninaan nabar ku ool ma jiro leey ya 60 sano ka hor ayuu ka sheekayna laakiin wuxuu asaga reflect gareenayaa 100 sano 200 sano nin aan dhaawac ku oolin ma jiro leey maanta dhacay markayaan u arag wax hadda naga cusub waa soo jireen marka warday iyo waa haynaa documentigooda waa yaal wixii colonial ka qoray kulli waa yaal ana waa arka meesha yaalaan waa aqaan waa laga daba tay karaa waa run dooda kale waaba ku dooda hadda Hargeysa kaga dooda daarood iyo Isaaq
waa jireen daarood isaaq awey waa jiray soomaali o dhan waa jirtay waa joogtay dooda dee lewis iyo dad badan iyo waxay tahay iyo mutacalimiin badan daarood iyo isaaq inuu kun iyo 200 inuu daarood ismaaciil jabarta u yimi sheekh isaaqna ka dambeeyo qarnigii 13aad uu yimi saasay ku bateen macquul ma wax macquul ah ma ah dad badan hadda waa kula soo dooday sheekh isaaq iyo daarood waa joogaan anaa marka dood cusub oran doona hadda oo ah inaan markaan daraasiyay aadaan arrintaas u darsay oo waxa weeye way la bilaabanayaan de state formation aan ka qoray marka waa inaan historical ground sameeyo sheekh daarood iyo waa jireen daarood iyo isaaq qabaa'il jiray ahaayeen laakiin sheekh daarood iyo isaaq aan noo yimi annaga markay Soomaaliya yimaadaan culamo waaweyn Baghdad ka timid waa lagu abtirsaday qabiilka sidiisana dooda taaganba waxay tahay yaa abuuray culimada abuurtay islaamka hor Soomaali qabiil ma baahan wax iska socday ay marka culamo waa la culumeeyay culamaa la hoosgalayay dahwiyana ayaga markuu arko ku dayda laakiin sheekh ma ahayn asaga sheekh ma lahayn ya asagu isu ma aha culumanimo ma ah oo nin la yiraahdo sheekh hawiye ma jiro maanta laakiin sheekh daarood waa spiritual meel lagu siyaartaa jiro sheekh isaaq meel lagu siyaartaa jiro hawiye marka waa isdaafacayay markuu galay kuwan lafiisu daafacanay ya waa dood cusub oo PhD-da ka aqrisan doontaan taas waqti ma hayno waa ka boodi doonaa East Africa iyo sayidka ninka waxa weydiiyay koox East Africa studies okay East African studies and the Swahili wax badan jira la qoray oo ka yaala kutub ah maxaa ku keenay Lewis waxaa noo keenay de aawe doorkii mutacallinka Soomaaliyeed saarnaa ninka ugu horeeyo PhD Soomaali qaato wixiisa marka hadda raaysid wax contribution u leeyahay ka daba tago raadiyay hal book review soo baxay oo 3 page ah PhD soo qaatay siyaasadda iska galay ninka noogu horeeyo ilaa hadda nooli iyo mar dambo shir Paris ka dhacay 1992 oo la yiri Soomaali dib loo fiiriyo 5 page oo qodbad camal ah book la dhaxgaliy kan camal qodbo in Paris aaw door laha ya ma doonayno hadda magaciisana sheegnay oo waa inaan ku ceebeynayna dadkiisa u malaynayaan laakiin ma ceeb waa critic gareynayna wuxuu lahaa contribution Lewis ninka naga qaban lahaa oo ka daba tagi lahaa isaga ha noqdo political scientist laakiin ma inaad wax samaysay oo darsay ahayd structure-ka Soomaalida oo hadda aniga aan ku wareerayno raadinayno jaa markaas in la ogaado waagiisa hor ahayd mutacallimka Soomaalida yaraaday la mar dambe ay soo baxeen haddana civil war-ki wuxuu yareeyay in mutacallim iskoolra soo baxo anaga amal mugta hadda dad dhalinyaro soo baxayaan mooye 99 ka dambeeyay waaba danan walba survival ku jira naftaada cidaada biil dibadii mugta ma soo baxeen marka intaasaan ku soo gabagabeyn doonaa waqti badan aan kalo intaan isla qaadan doonaa iyo mowduuci intaan ka badan ya oo aan ka sheekaysan doono markaan soo laabta hadii ilaahay ya waqtiga waa la dimo dukanayna